soomahay asbaabta qaadka kamida qaadka waa aafo qaran waay dagaaladan iyo aafaadkana qayb weyn buu ku leeyahay daawadiisa isaga waxa weeye bulshada in laga wacyi geliyo diinta dib ugu geysan caafimaadka dib ugu geysan aqliga dib ugu geysan taranka dib ugu geysan nabadgelyada dib ugu geysan qaadku meel uu fayoobeeyo male meel uu badbaadinayo male waxa xaqiiqo ah khamrada iyo qaadka waxa dhib badan qaadka dhib badan khamrada dad yar baa caba ka cabana isaga baa isdhiba maalmaha uu sarqaansan yahay ama sariirtu gali ama meelahaas uu dhicdhici ama isaga isku xaariyo isku kaaji soomada garan laakiin midka qaadka cunay intuu sarqaama naga seexan maaye qori buu qaadana dadku leeyna sooma qaadkani waa aafo dhaqaale ma fayooba taran ma fayooba korin carruur ma fayooba wadan ma fayooba nabadgelyo ma fayooba diini ma fayooba wax inoo fayooba ma jiro qaadkaas wuxuu u baahan yahay in ummadda laga wacyi geliyo andimadan iyo dawladahan dalka ka dhisanna inay qaadka canshuur ka qaataan dalka iyo dadkana ku fasaxaan waa khiyaano waay dhibaato ka weyn oo ummadaasi qaabto ma jiro laba qodob qabiyaaladan ka soo sheekeeyay iyo qaadka labada mushkilada Soomaali ugu daran haysta waay cid kasta oo barnaamijka olo ka wadana waa in la garab siiyo ninka odayga muxuu ahay ee qaadku waan bahay ololiisa عوالم يا ورعوم يا ورن Soomaaliya jiray baalka u dhar dhigtay yaa warninka la garbistaa oo cid kasta oo qaadka ummadda ka wacyi gelinaysa la garbistaa